intii lagu xisaabinin is-xisaabi walaalkay walaashay waatan adduunyo geerida malahan yaraan iyo weynaan saa u jeediin gabartan iyadoo yar aa la oofsaday innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hayee walaalahayga Soomaaliyeed meel walbaa joogtiin waa nin salaamay cawada waxaan nin wada murugo iyo tiiraanyo oo na wada sugayso anaka dhan ibn aadin haddaan nahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatul mawt innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaa inta tacsi ugu diraa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba bay joogaan gaar ahaanna waalidiintii dhalay iyo walaalihii iyo asxaabta ee ka tagtay walaasheena Muniish kullu nafsin daa'iqatul mawt qof kasta waa dhadhaminaa maalintii oo dhadhaminay lay kale iyo sidii oo u dhadhaminayo laakiin haddii ibn aadan tahay oo sanku neef la tahay way ku sugee goormee waaye ilaaha og waqti la ogyahay ma ahan anytime adoo jiiftid adoo soconaysid adigoo jiran sida kuugu imaataba waa la dhadhaminaa geerida marka khayru khalqillaah aad joogi lahay haddiiba oo qof oo adduunkan joogayo marka ilaahay samir iyo iimaan ha kasii dadkee ka baxda geeridu way kala kulushahay marka qofka markuu shabaab yahay oo had iskee keenay ma ku fiicno inkastoo geerida ee qof ay ku fiican tahay balaheen haddana way kala kulushahay maho marka dadkii dhale hooyadii aabihii dhaleen walaalaheedii ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo gabar la jecel yahay ahayd kolley waa u jeedin social media cawada iyadaa haysato aan galabtaanaa maqle kadib dad badan aan ka arkoya marka waqtigeeda intaan ahay marka anakan waqtigeena insha Allah ilaahow waxaa kaa toogna waqtigeena waqti fiican insha Allah anakoo meel fiican ku jirno insha Allah gabartaaneetin ilaahay jannatul firdaws al-a'laa ha ka waraabiyo kutubkeedana gacanta midigta ilaahay ha ka siiyo innaa lillaah wa innaa ilayhi raajicuun marka adduunka waa taas qofkii adduunyo wax weyn u malaynayo adduunyada waa taan saan waay gabartan hadda maasha Allah way caadi safaray ku jireenaan lahay iyadii dadkeeda waa kan qadarti ilaahay aa dhacde waqtigan intaan ku ekaay laa yastaqruuna saacadan walaa yastaqdimuun waa kan waqtigeeda intaanu ahay baabuurka shilkaaneeti sabab u noqde laakiin waqtigeeda maanta ahay marka ilaahay ha ka dhigo marti la jecel yahay ilaahay ha ka dhigo insha Allah kitaabkeeda midigta dadkee ka tagtan samir iyo iimaana ugu tuug ilaahay gadaalkeedana mana fitneeyo marka intaasaa usoo gala asxaabay labadan beri waa kala maqneen marka insha Allah halisku soo duceeyo insha Allah gabartaaneetii gabar yare ahayd
marka haloo soo duceeyo miskiinta maanta waxay nooga baahan tahay ducadeena waay haloo soo duceeyo annagana aan isku duceyno aan iscafino adduunyo waxay tahay malahan adduunyo waxa waa la dhahay adoo safar oo laami gooynaysid camal waa la adduunkan dhan aa ujeedid waxay tahay malaanaka wax weyn ka dhigoono insha Allah asxaabe aakhirada hal xasuusnaado annaka dhana xasuustaas nagu yartaa insha Allah ilaahay gafkeeni geerideena ma kulmi insha Allah gabartan yarna loo soo duceey faamilkay ka tagtaa loo soo duceey insha Allah marka intaas u soo gale marka waa mahadsantiin asxaabe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh في أمان الله إن شاء الله next video انت اسكاركين باي باي